السلام عليكم صاحبي الكسود هذا مقال عصب مقال كان عصب أيان أقحل لدونا هذا الهينتي قدام بيسي لبدي أسبوع لسد أحمر أي برها بالشدة السوشيال ميديا تا وكو آدنيت سياسة وحسكبدل كآلة واتساب dad badan ayaa isoo weydiiyay waxyaabaha ay ka dhalan karto shuruudaha cusub ama siyaasadda cusub ee WhatsApp-ka haddaba maxay tahay ama muxuu yahay abka loo yaqaan WhatsApp-ka maxay tahay shuruudaha cusub ee soo bandhigtay saameyn noocee ayay ku yeelan kartaa dadka isticmaala WhatsApp-ka shuruudaheeda cusub maxay tahay sababta ka dambeysa shuruudahaas ما دبا إن دتك استعمال جيرين أي كجورين وح إسكبدل كيسامين الشركة أو جيدا يجلس فإذا أوجد جرتا عالم تاسي سؤالها سيدي كوكلا أو كادح جوحا يعين برنامج كإذا كوجينا هل كأننا قد دعونا يسام ويدام في أنا أقول وحنا يساعدنا مصلح مادي isku soo noqdo wanaagsan saaxiibada qiimaha badanow aaladda WhatsApp-ka oo inta badan dadka ay isku diraan fariimaha iyo dukumiintiyada iyo xogaha gaarka ah waxa aasaasay nin u dhashay wadanka Ukraine magaciisu yahay John Cam qaxootina ku ahaa dalka Mareykanka shirkadda markii ay guuleysatay waxa ay sheegtay in 30 milyan oo qof message isku diraan maalinkii hal dhibic 2 milyan oo active-na ay ka yihiin bil walba haddaba maxay tahay shuruudda ay soo bandhigeen inta aanan u guda galin bal aynu eegno shuruudihii hore ee u yaalay hadda halkani waa December 2019 shuruudihii December 2019 u yaalay waxa ay ahaayeen sidaas waxa aynu ku ixtiraameynaa macluumaadkaada gaarka ah tani markii ay bilaawatay aaladda WhatsApp-ka waxaan ku talagalnay in aan dhisno adeegeena anagoo maanka ku weyno mabaadi'da gaarka ah ee asturnaanta haddaba su'aasha ayaa ah maxay kaga duwan tahay tan maanta macnaha iyo hadalhayn badan ka dhalisay dadweynaha dhexdooda وهذا السياسة عصور مانتا تانيبود كنكو إلى واتلك حتى ومحيطا وحل الشيغايو إيداد كسلو ريجينايان أو إن للو ذاقي دونا فيسبوك وحا أولو ذاقي يا حق هذا فيسبوك حق والبقو كوكو قرصون كو سابسن آلة واتساب سيدا نوع تليفون كاد استعمالي سو meesha internetka ka isticmaalayso halka baterigaaga uu marayo signal strength-gaaga time zone-haaga IP address-ka isticmaalayso ha iloowin waxa ka mid ah xogta group-yada la isku diro iyo kuwa kale ee idin muuqda waxyaabaha ugu muhiimsan ee siyaasadda cusub ee ku aadan shirkadda Facebook ee dadka uu ku soo wargelinayo waxa ka mid ah fariintan مليين في ركار أو أن كسب بنتجين حقوقتنا حدي أن وليين سميني وحاس بنسين دونا سياسة أسترنانتا حدي أن ميشن جلعيو شركة فيسبوك أيكو أنت أوريسو حدي أي وليود بأي أبديت جرين سياسة دودا حدنا واقب كميتا سياسة دودا إن أيكو حران فيسبوك taa oo dad badan ka xariisay haddaba dadka qaar ayaa isweydiinaya waxa ka dhaxeeya shirkadda Facebook iyo WhatsApp aan dib ugu laabana 2014 bishii December ayaa 19 milyan ay ku iibsadeen shirkadda Facebook oo macnaheedu yahay waa isku mid oo hal qof ayaa iska leh Facebook iyo WhatsApp-ka tani markii ay soo baxday warka ku aadan WhatsApp-ka ayaa dad badan u hoyaameen Telegram-ka ayagana dhinacoodii sheegtay in 72 saac ee ugu dambeysay 25 milyan ee la degeen abkeeda kuna soo biireen kuwa oo badankooda ka soo jeeda Asia iyo Europe iyo Latin America
meesha waxaa kaaga muuqda in Afrika aan weli dhayalsaneen isbeddelka suuqyada tiknoolajiyada. WhatsApp ayaa hadda dib u dhigtay arrintii ahayd in bishii Febraayo ay hirgelin doonto barnaamij siyaasadeedkeeda. Hadda adiga ma ka mid tahay qolada ka guurtay aaladda WhatsApp-ka? qaybta hoose ee faalada inoogu soo qor meesha aad u guurtay. nabadgelyo.